furitaanka shirka iyo ujeedada shirka madaxweynihii martida loo ahaabaa noo sheegay. marka ugu horeysa waxaan rabaa inaan halkaan mahadcelin iyo bogaadin aan uga diro dowladda galmudug iyo shacabka reer galmudug sida quruxda badan oo soo dhaweynta leh oo Soomaalinimada leh oo dadaalka badan ku jiro oo ehelnimada leh nagula soo dhaweeyay inaan uga mahadceliyo. aad iyo aad baa loo dadaalay, aadaan ugu mahadsantihiin. waxaan bogaadinayaa shaqada fiican maamulkan cusub oo curdunka ah uu wado, uu istaagay inuu galmudug uu meel fiican ay gaarto, dadkeedana ay gacmaha isqabsadaan. ayadana waa bogaadinayaa. bogaadinta kadib waxaan isugu nimid shir muddo dheer aan qaadanin inaan isu imaano. waa dareemi kartaan waqtigii lagu ballamay oo aan ka shaqaynay shirkan in la isugu yimaado iyo sida ugu dhaqsaha badan ay u suurta gashay waxay caddaynaysaa muhiimadda uu leeyahay shirkan. shirkan wuxuu muhiim u yahay waa shir wada tashi ah oo dowladaha xubnaha ka dowladda federaalka ay ku tashanayaan. waa shir ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogto looga hadlayo maslaxadeeda, horumarkeeda, isdhexgalkeeda, siyaasadeeda, amnigeeda iyo dhaqaalaheeda. waa shir loogu talagalay dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka inay isku warsadaan maanta meesha ay Soomaaliya maraysa, iska warsadaan danahooda iyo shaqadooda iyo siyaasadahooda iyo mas'uuliyadda saaran ay ka sheekaystaan. arrimaha amniga laga hadlo, siyaasadda laga hadlo, dhaqaalaha laga hadlo, arrimaha bulshada laga hadlo, doorashada laga hadlo sidii loo wadaagi lahaa marxaladda maanta taalo oo kala guurka ah, sidii looga gudbi lahaa in laga wada hadlo. waa wax mustaqbalkii ummadda Soomaaliyeed oo dhan ku xiran. waa wax dowladda federaalka ah aan xubnaha ka nahay oo dowladdanada ah dan u ah, ayna ku faraxsan tahay ay og tahay waxa aan ka shaqaynaynana ay tahay wixii nidaamka federaalka uu noo ogolaa oo ahayd in la sameeyo dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ay samaystaan wada tashi iyo wada shaqayn iyo isdhexgal iyadoo mid guud ay jirto. haddana sida uu madaxweyne Saciid u sheegay waxaa jiro si gaar ah iyo xuduudo iyo derisyo iyo maxay ahayd si la isu leeyahay. annaga dowlad ahaan dowlad koonfur galbeed waxaan deris leenahay, deris weyn baan leenahay, xuduud dheer wuxuu nagala dhaxeeyaa dowladda Jubbaland, mid kale oo ka sii dheer asagana saas oo kale ah Hirshabeelle, mid kale gobolka Banaadir. intaba waxaan rabnaa in wada shaqayn joogto ah iyo xiriir dhab ah aan samaysano iyo isdhexgal bulshadaas ah oo ku salaysan sidii looga wada shaqayn lahaa arrimahan caqabadaha ku noqday dadka Soomaaliyeed dhibaatada saameysay oo shabaabka ah oo loo heli lahaa amni ay dowladahaas kulligood ay ku wada naaloodaan oo lagu wada shaqeeyo ganacsi iyo isdhexgal fiican loo heli lahaa. bilow fiican ka samaynay 6 bilood ka hor waxaa Ilaahay noo suurtageliyay inaan anaga iyo dowladda Hirshabeelle aan shirkaas iskaashiga ah aan qabanno. guulna uu ku dhamaaday oon iska kaashanayna arrimaha amniga iyo daris wanaagga iyo ganacsiga si fiican buuna noogu soo dhamaaday. inta kalena waxaan jecelnahay haddii Ilaahay yiraaho in iskaashigaas aan sameeyno. markii aan intaas ka soo gudbo runtii maanta marxaladda ay Soomaaliya marayso waxa weeye nin kasta oo Soomaali ah
soomaalida waxay aad ugu faraxsan tahay oo heshiis ku tahay oo hanaqaadkii dowladnimada ku dhiirigeliyey in waqtiga doorashada markii la gaaro uu waqtigii doorashadii ay dhacday nin kasta oo Soomaali ah wuxuu raba ha ahaado xilku raba ha raadiyo wuxuu isku qancinayaa nin walba wuxuu leeyahay waqtiga iska gaaban 4 sano dhamaanaysa waa sugaya marka nin kasta oo Soomaali ah maanta wuxuu diyaar u yahay 4 sano markay dhamaato inuu u diyaar garoobo ninkuu bedeli lahaa iyo ninkii soo noqon lahaa waa wax standard ah oo Soomaalida dhan ay heshiis ku tahay laguna wada faraxsan yahay runtii dawladda maanta joogto marxaladihii dawladda qori isku dhiibka ahaa shaqo aad u fiican iyo horumar la taaban karo oo dalka iyo dadka Soomaaliyeed ba anfacayo yay ka shaqaysay waxaan jecelnahay haddii Ilaahay yiraaho in haddana aan ka wada shaqeyno sidii ay ku dhici lahayd dadka Soomaaliyeed cabsida ku jirto iyo baqrintan mar walba iska taagan oo u taagan markii marxaladan la soo gaaray kala guurka ah nin kasto Soomaali ah iyadoo aanan wali aan la gaarin yaa waxa jira dareen baqdin ah waxa yeelayana waxa weeye dhibaatada tirada badneed oo la soo maray marka nin walba wuxuu leeyahay haddii aysan saas dhicin dhibaatadii baa lagu soo noqonayo waxaan Ilaahay ka rajaynaynaa inaysan wixii afka uu bartay oo la dhihi jiray god baa lagu dhacayaa inaysan jirin godna hore looguma dhicin haddana laguma dhici doono insha Allah doorasho dhici doonto sidii caadi ahayd bay u dhici doontaa doorasho dadka Soomaaliyeed oo dhan ay heshiis ku yihiin oo sida ay madaxda dawladda sheegtay golaha wasiirada ay ku baaqeen madaxweynahana uu ku soo dhaweeyay oo ku taageeray way doorashada aan rabno oo dhici doonto insha Allah haddii Ilaahay yiraaho doorasho dadka Soomaaliyeed oo dhan ay heshiis ku yihiin yaan rajaynaynaa waxaan kaloo rabnaa dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka in aan la isku xirnaado oo la wada shaqeeyo oo la abuuro jawi nabadeed oo iskaashi iyo wada shaqeyn isla markaasna sidaas oo kale dawladda federaalka iyo dawladaha xubnaha ka ah dawladda federaalka ahna ay saas oo kale wada shaqeyn iyo isku xirnaan iyo midnimo tan hadda jirta ka sii fiican ay sii jirto yaan ay ka mid tahay shirkan aan isugu imaanay insha Allah waxaan rajaynayaa shirka inuu intaan ka sii ballaaran doono dadka Soomaaliyeedna waxaan ugu bishaareynayaa rabitaankooda iyo shacabka aan mas'uulka ka nahay waxa ay ka fikirayaan iyo sida ay wax u rabaan inaan ka shaqeyn doono in aan maxay ahaydey wax Soomaali ay isku ogtahay oo ku faraxsan tahay oo aanan walaac iyo baqdin ku jirin in uu shirkan uu ku soo dhamaan doono haddii Ilaahay yiraaho mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadcelinayaa wafuudii kala duwaneyd iyo madaxweynayaalkii shirkan nagala soo qayb galay iyo dawladdii galmudug aad iyo aad u mahadsantihiin wixii kaftan ahaa oo aan aad u jeclaa waxaa sheegay Saciid aniga naftarkayga waxaan aad ugu faraxsanahay in uu maanta Cabdi Qajiid uu hubyo iyo uu sumaraayo gaalkacyo oo halkaas ka shaqeynayo oo federaalka uu aad ugu faraxsan yahay oo meeshii laga rabay federaalka uu gaaray waxaa la yiraahaa markii Soomaaliya xornimada ay qaadanaysay ka hor intaan xornimada la qaadan annaga waxaan ahayn dadkii u dacwoonay federaal Soomaali ma gaarin meeshaas Saciid iyo markaas dadka noogu ilbaxsan bay ahaayeen federaal ma isla rabin laakiin 10 sano ka hor 60kii yaa odayaashii siyaasiyiintaanadii iyo waalidiintaanadii waxay u dacwoonayeen inay lahaayeen si Soomaaliya dawladnimo rasmi ah looga helo hal daadijiyo dawladnimada systemka federaalka aan qaadano si aanan la isu dulminin oo uqdadan aynu u dhalan waxaan qabaa haddii maalintii ayada talada la yeeli lahaa
shakigan iyo baqdintan iyo cuqdadan tirada badan iyo halkaan maxay ahayd dhagaxan shalay la qaaday iyo magaaladan isla joogo xal fiican baa imaan lahaa oo maanta dhibaatadaas ma dhacdeen haddana waxaa muuqato in la dabaqay u baahan tahay laakiin in federaalkii dadka Soomaaliyeed oo dhan ay ku faraxsan yihiin in system federaal ah qaadano maamulka iyo dawladnimada hoos loo daadajiyo talada ay tala hoos ka soo bilaabatay ay noqoto ilaa ay meesha ugu koreysay ay gaarto arrinna aad ugu faraxsanahay weeye waana la dhameystiri doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo insha Allah oo dadka Soomaalida markii laga reebo in la yiraahdo federaal aan nahay waxay u baahan tahay federalismka naftirkiisa barasho kale dawladihii dadkan waxa lagu soo koray centralismka marka ayada naftirkeedana way qaangaari doontaa waa la baran doonaa haddii la aaminay aad iyo aad u mahadsantiin waxaan idin rajaynayaa guul dadka reer Galmudug shirkaana waxaan ka rajaynaynaa inay ka soo baxdo wax dadka Soomaaliyeed ka farxad geliyo waana waxaan u nimid salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh